looga hadlayay sidii ganacsiga Soomaaliya loo horumarin lahaa iyo sidii Soomaaliya loogu soo jiidi lahaa maalgashi ka imaanaya dadka Soomaaliyeed ee waxaysta ee dalka gudihiisa iyo dibaddiisa ku sugan iyo dabcan maalgashadayaasha ama maalqabeennada caalamka sidii loogu sahli lahaa inay Soomaaliya maalgashadaan si ay nolosha bulshada Soomaaliya isu beddesho oo shaqo la'aanta dalka ka jirta looga baxo sidaad arkayseen ilaa shalayto waxaa dawladda Soomaaliyeed iyo ganacsatada Soomaaliyeed oo u kala harin halkan lagu soo bandhigay sidii qodobada aan sheegay loogu samayn lahaa qorshe dawladda nabad iyo nolol iyo guud ahaan dalka Soomaaliyeed dawladda waad arkaysaa mas'uuliyaddeedu ma aha oo kaliya inay dhisto hay'adaha dawladda mas'uuliyaddeeda waxa weeye inay dhisto hay'adaha Soomaaliyeed ee kuwa dawladda iyo kuwa gaarka loo leeyahay waxaa kaloo farxad ah inaan maanta qaybtii saddexaad aan u gudbayno hore waxaa loogu soo seexay London mar kale waxaan ku seexnay Brussels maanta waxaa alxamdulillah ah inaan dibad u aadin qaybtii saddexaad oo aan ku seexayno dalkeena hooyo oo aan halkan ay Muqdisho ay noo noqotay maanta in boqolaal ganacsato ay ka soo qayb gasho wada hadalkaas iyo saxiixaas ayadoo awal aan ku tagi jiray 20-30 qof aan ku tagi jiray laakiin maanta ay farxad tahay ayna qaybta ugu dambeysay in la sign gareeyo oo ah in lagu daray agro businesskii lagu daray BBD oo hadda wada hadalka uu bilaaban doono